kulanti wacan daawadeel ku soo dhawaada barnaamijka garsoorka fanka oo hadahan oo kaliya aad daawataan barnaamijka ayaa ah wareegiisa labaad inagoo toddobaadkan sharmarko aynu soo qaadan doono afarta fanaan ee dayax dal nuurshe oo aan ku aadina qadarkeeyo iyo waliba sidoo kale waxaynu isku aadinay toddobaadkan cashakin cilmi xaashi oo aan ku aadinay nasteexa indo wareeg labaad ay soo gudbeen nadiifo toddobaadkii la soo dhaafay iyo toddobaadyadii ka horeeyay barnaamijka waxa soo dhamaaday wareegga koowaad waxaan isku soo aadinay 32 fanaan 16 soo baxday 16 ka soo baxday baan haddana afar isugu aadinayna wiil iyo gabar waxaynu raadinaynaa in aynu helno xidiga fanka ee sanadkan haddii Allah wadalo ogolaado sharmarko bal waxa u dambeeyay toddobaadkii u dambeeyay barnaamijka wareegga koowaad aan ku soo qaadanay afarta fanaan ee kala ah Cawaale Aadan oo aan ku aadinay BK iyo waliba sidoo kale toddobaadkeenu ka soo gudubno waxaan isku aadinay King Jaamac Yare iyo Xaliima Gobaad oo iyagu ahaa wareeggii ugu dambeeyay tartamayaashii ka qayb galay natiijadoodan barnaamijkan garsoorka fanka ee toddobaadkan ayaan idinku soo gudbin doonaa waa mar kale iyo barnaamijka garsoorka oo idinkaga imaanayo SNTV xarunta uu ku leeyahay dalka Finland هيا نظيفة حجو شرمك حجة كتير حسافك يو حلشة فنانك يو حدقي سندك يو حريك جيد كدعايو حفلتك وانك هلاي حقين أوراد سدا أوركو حرمان نظيفو أنا هاي حكتاسي حقيقة شرمارك هو حاشاي بالسودان برنامج حخصور ولا دورة حقيرادة وفنكو كحفالتما SNTV بوحلقن حريك جيد كوكاس عضايا شرمارك حفله هور فريسو فناولي بحرفدي عضيو حرقة دي سوغان ولي حرفكيت حجمي مرتدى يا حتى إيو عد حريران يا حرفدي هو حدك نقوم كرا برنامج قرصورك فنكا وبرنامج دوانك بحدونا التلفزيون كقرنك سوماليا وحنا لغو سوحولي دونا الدقة هي حديك تفنكا برنامج قرصورك فنكا markale iyo markale kulanti wacan ku soo dhawaada barnaamijka garsoorka fanka oo aad ka daawaneysaan telefishinka caalamiga ah ee SNTV xaruntiisa dalka Finland nadiifa sharmarko aynu ku bilawnaa toddobaadkan maadaama uu xiisa gaar leeyahay wareeggii labaad horta 16 baa ina deysay 16 baa inoo martay 16 inoo martay afarta maanta inoo martay waxaan ku bilaabaynaa fanaanka dayax dal nuurshe oo kamid ah fanaaniinta tartamaya maanta waxaana uu dayax kamid yahay fanaaniinta reer Muqdisho ee aad u jecel yihiin waxa waliba ku aadina qadarkeeyo heestana waa Zamzam nala daawada daawasho habeenku caadiyaho cirkuna cad lahayno xidigu amirayn yaa kula caweeya samsamee kula cayaara habeenku caadiyaho cirkuna cad lahayno xidigu amirayn yaa kula caweeya samsamee kula cayaara cawda kula kaco adduunyadan caashaqa yaadu noqotaa cawda kula kaco caynkaba adduunyadan caashaqa yaadu noqotaa
wadcuduntaho dumara keena caanbaxay caalama kaadu siidataa ana waan ku caashaqay samsama wadcuduntaho dumara keena caanbaxay caalama kaadu siidataa ana waan ku caashaqay ma icibtiraysaa samsamay ma i caawinaysaa xabiibi samsam waad cuduntaho dumara keena caanbaxay caalam kaadu siidataa ana waan ku caashaqay samsam waad cuduntaho dumara keena caanbaxay caalam kaadu siidataa ana waan ku caashaqay inta aynu ku dhaafno daawadayaal codkii macaanaa ee dayaxadan nuurshe iyo weliba heestiisii aadka u macaaneed ee samsam barnaamijka garsoorka ayayna qayb ka ahayd sharmarku zamzam waad cudoon tahay ayuu leeyahay fanaanka dayaxdal nuurshe barnaamijka garsoorka fanka ee toddobaadkan ayuu daahfur ku ahaa wuxuuna kamid ahaa 4 fanaan ee toddobaadkan barnaamijka aan ku martigelina oo aan ku aadina qadarka iyo isaga markaan soo qaadanaa dhankii gabdhaha dhankii gabdhahan soo qaadanayna cashakiin cilmi xasha ayaanu soo qaadanaynaa iyo weliba heesteedii caanka ahayd ee sacabo furan nala daawada daawasho wacan
surmiin saradii way nimceen waxaan samir waxshadaba hadduu igu simay nasiib anoo adi ii surmiin saradii way nimceen niyadoo ku saafiya ku soo bood sacaba furan ku soo bood sacaba furan waa hagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliya barnaamijkuna waa garsoorka fanka fanaanaduna ah hadda heeskeeda daawateen waxa ay ahayd Caashakiin weliba heesteedii kusoo bood sacab fur waxa ay leedahay sanado badan ban dartaa he hurdada uga soomana aw hadda iska seex oo salaamina Caashakiin tahay Caashakiin waynu salaamina barnaamijka tartamayaasha toddobaadkan ayay kamid tahay sharmarko markan yiku aadanta Caashakiin waxay ku aadan tahay nasteexo indo daawadayaasha barnaamijka garsoorka fanka waxa aan leenahay wareeg labaad ba bilowday taageeraha fanaanka aad u tahay uga coday halkan aad u jeedo waranjeynaya in ay si aadaha ay ula qabsadeen qaabka loo codeynayo waliba halka laga codeynayo sharmarko aad iyo aad sharmarko madama sheeko wax xilib sheekada dawdash sheekooyin ay noo soo direen aad ay u mahadsan yihiin sharmarko bal sheekadii ugu horeysay ama ugu xiisaha badan ma ku hormaraysaa mise adigu ku hormar ايوه اي انا كهرمر daawada la yiraahdo Sheekh Nuur Bashiir Umar ayaa wuxuu inoo soo diray sheeko waxa uu yiri wiilba wuxuu soo raacay baski isagoo saaran baa wuxuu arkay gabar qurux badan oo baska saaran gabadha si qurux badan ma ka saa macnaha anigu kale aad gabadha markuu baska ku arkay intaas aan kugu jeclaa adiga waxa xaqaa waa dhacsanaysaa waa ku qasbanay because gabdhaha ana matalo inta taagan aad iyo aad gabadhii baska markuu wiilka ku arkay baa wuxuu ku degay mustaajada gabadha ay ku degtay isagoo aan la gaarin gurigiisa halkuu baabuurka uga degi lahaa baska ahaa markii gabadhii ay degtay buu ka daba degay gabadhii si uu u barto oo xogaa wada hadal u dhex maro markaas gabadhii wuxuu yiri wiilkii waxay ku tiri telefonka inta fiiris telefonka ka damay qofka meesha ku balamisayna oo familka ahaana ma uu imaanin telefonka wiilka wuxuu ku tiri walaal telefonkaaga ma igu caawin kartaa jaanis kale uu helay markaas isaga wuxuu yiri walaal telefonka iguma jirto lacag ku hadal markaas waxay tiri waayahay internetka ma ii furi kartaa hotspotka ama wirelesska ma ii furi kartaa markaas uu yiri ha markuu wirelesska furay wuxuu ku tiri passwordka ii sheeg markaas wuxuu ku yiri waan ku jeclahay macna passwordkiisa hore u ahaa inuu ku jeclahay passwordka waan ku jeclahay ha isaga wuxuu leeyahay waan ku jeclahay markaas iyaga wuxuu leeyahay hadda leeba bas isku baranay sayideh waan ku jeclahay macna markaas isaga wuxuu ku celinaya waan ku jeclahay marka passwordka wuxuu ahaa waan ku jeclahay iyadana waxay u fahantay isla markiiba inuu waan ku jeclahay leeyahay sheekada Sheekh Nuur baa inoo soo diray aad ayuu maasan yahay daawadahaasi nala wadaagay sheekana aad ka wixii badan hay heeska inoo xigo heeska xigo soo qaadana mise sheeko kale soo qabo ma sheekada dabcada hadhow ku xijinaya soo qabo waa maasida sharmarko markana waxaanu soo qaadanaynaa mustaaxiin soo qaadanaa aad iyo aad may qadarkeeyo aynu soo qaadanaa ha fanaanka qadarkeeyo ha wiil xuquuqda wiilasha baa halka u taagan wali waa ogahay sharmarko heesta jecesha qadarkeeyo aad iyo aad bal qiyaas waxaan isleeyahay heestii caasha way shidan tahay way shidan tahay yarta ma u sheegteen daawasho wacan shacnigan quruxdeeda shakiyo qosolkeeda yartooy shidantee ma u sheegteen ma u sheegteen shacnigan quruxdeeda shakiyo qosolkeeda
yartooy shidantee mau sheegteen al mau sheegteen mau sheegteen caashaway shidantee mau sheegteen shandalad sheekh iyo aqoon xariir lagu shaaximiyo inay shiiqisay hablaha ku nool shanta qaaradood shandalad sheekh iyo aqoon xariir lagu shaaximiyo inay shiiqisay hablaha ku nool shanta qaaradood mau sheegteen caashaway shidantee mau sheegteen kalgacal shida aan lahayn shuush iyo laga dhooray been hadday igu shaafilay inaan shaamareeri lahaa kalgacal shido aan lahayn shuush iyo laga dhooray been hadday igu shaafilay inaan shaamareeri lahaa mau sheegteen caashaway shidantee mau sheegteen inta aynu ku dhaafno codkii macaanaa ee qadarkeyo iyo weliba heestiisii yartu way shidan tahay u sheegtay ma loo sheegay waa loo sheegaa gabdho dhan yaa u sheegay qadarkeyo ani ma u sheegin ma u sheegin adiga ma u sheegi karaa haddii caasha qadara shidan kala tahay. soo hormar sharmarka ani kuwa kale u sheegaa miya inay shidan yihiin Ya. hay qadaroo adiga u sheeg ayada aad ayuu mahadsan yahay qadarkeyo waxa uu ka mid yahay tartameesha toddobaadkan sharmarkow bal natiijada ma sheegnaa toddobaadkii hore xoriyo soo dhawow may xorriyo maanta maxaa dhacay adiga sheegay maanta natiijada xoriyo maanta barnaamijka hadde xorriyo maanta barnaamijka waa ay codka xiran codka dartiisa ha Marka boos anaa waxay adiga booskeeda buuxinaysa. u buuxinayo soo dhawow kulanti waxaan saaxiibayaal ku soo dhowaada xubinta natiijada ee barnaamijka garsoorka fanka ee toddobaadka lasoo dhaafay waxaan tartansiinay afarta fanaan ee kale ah cawaale aadan oo aan ku aadinay maxmed bikey iyo fanaanada xaliimo gobaad oo aan ku aadinay fanaanada kale ee kiin jaamac yare sida aad shaashada ka aragtaan waxaa codeeyey dad gaaraya ilaa iyo 2,273 ruux waxaana codadka loo kala helay sida aan hadda soo wada adinkana aad ka daawan doontaan shaashada fanaanada xaliimo gobaad waxa ay heshay 564 cod fanaanada kale ee ku aadaneed ee kiin jaamac waxa ay heshay 576 cod fanaanka maxamed bikey waxa uu helay 528 cod halka fanaanka cawaale aadan uu helay 605 cod wareegga labaad oo toddobaadkan bilowday waxaa usoo gudbay fanaanka cawaale aadan iyo fanaanada kiin jaamac waxaana ku haray maxamed bikey iyo xaliimo gobaad barnaamijka oo aan aniga iyo nadiifo isla wadno baan dib ugu laabanaya aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay sharmarka natiijada ayaad inoo sheegtay maanta aada u mahadsan yahay sharmaaki inuu baxa umalaynaya waa taaganahay adoo ila taagan weli oo ku mahadcelinaya sharmarka aad ayay u mahadsan tahay Ma ila socotay natiijada? si fiican haye yaa soo waa la baxay soo baxay iyo kiin waa daawanaysa si fiican cawaale aadan fanaan leh waa macsalaameyna maanta waxaan macsalaamina bk iyo xaliimo gobaad iyo xaliimo gobaad xaliimo gobaaday macsalaamo maxamed bk iyo macsalaamo cawaale iyo waxaan soo dhaweynaynaa Kiin ikiin Jaamac. toddobaadkan soo dhawaada sharmarko weli sheekooyinka maanta sheekada adiga sheekooyinka maanta anaa ii daysay maaha inta ugu badan micnaha may waxaan samayn doonaa hadda kadib marka toddobaadna anaa sheekooyinka akrinaya toddobaadna adaa akrinaya okay waa ogola ma ogoshahay ama toddobaadka dambe ka baxda ma dhacaysa sharmarko aad u mahadsan tahay sheekada labaad ee uu noo soo diray daawadaha sheekada labaad ee daawadaha uu inoo soo diray waxa ay tahay laba gabdhood baa guri wada degnaa micnaha aniga xorriyo tusaale fiican waay tusaale fiican inkastoo aysan wada degneyn dadka qaar oo soo lago-ayna gabarna qolkan bay degneyd gabarna qolkan bay degneyd guriga waxaa soo galay marka tuugo Hay. laba isla socoto oo qoryo wata
tuugadii markay soo galeen sheekadii soo dir ma dhehis يا صدر شاكذا daawadaha soo dir magaciisa مقعيس دب أيام كشيء دونا waayahay guriga markay soo galeen maxaa la dhahayay waxay isla markii qol ku jabiyeen gabadhii ugu horeysay ee qolka geeska degneyd معناها قبلها لبا حلقة الموضة laba qol ay kala degnaayeen markaas qoriga markuu intuu qabto wuxuu yidhi sheeg aawe alaabta intaa ku jirtaa dahabka xaguu yaalaa sheeg markaasay tiri waraani dahab ma hayo markaasuu yidhi waa heesaay sheeg markaasay tiri ma hayo markaasuu intuu qoriga qaj u siiyey ay qaylisay waxay ku tiri ha naya hiblaayoy adaa dahabka meesha ku jiro ogini markuu sheegay adaa dahabka meesha ku jiro oge nimanka u sheeg tuugada maxay sameynayaan marka هبلاي هذا gabadhi kale u galeen gabadhi kale oo qolka inta ku jibiyeen markaas xabad uga hormariyay horta si hadhow aysan isku waalin xabad معناها ما دام دون سي هلن كده عيسى هذا markii way xabad bul ku siinaba dahabka sheeg markaas ay tiri dahab ma yani waa la qaatay dahabka markaas yaa qaatay war tuuga idin ka soo horeysay ma kaligiina tuuga tuuga idin ka soo horeysay ma kaligiina tuuga معناها ولا صهر tuuga kale idin ka soo hormartay aad u maasan yahay waxa inoo soo diray sheekadan dalmar axmed raag camiyo dalmar هذا يوم أسينا دلمر وينو سلامينا aad ayaan uga mahad celinaynaa daawadayaasha sida tooska ugu xiran barnaamijka ee mar waliba nala wadaaga sheekooyin aad u macaan sharmaarka oo gabagabadii barnaamijka aynu soo gaarnay gabagabadii aan marayna hal fanaanad baa inoo hartay watay nasteexinto dee soo qaba markan adiga nasteexa ayaanu soo qabanaynaa iyo waliba heesteedii lahasho markii laba is eegtaba waxay laabtu moodaa sada riddo loogu ganayba anna laygu wahiyo waxa layga bahantaa jacaylay la qimayo jacaylay la qimaye sada riddo loogu ganayba anna laygu wahiyo waxa layga bahantaa jacaylay la qimayo jacaylay la qimaye markay laba is eegtaba waxay laabtu moodaa markay laba is eegtaba waxay laabtu moodaa inay igu lamaayeen markay laba is eegtaba waxay laabtu moodaa markay laba is eegtaba waxay laabtu moodaa inay igu lamaayeen anna lahashadaydi wali luunki kama bin naftii ku lurtoote lulmana iisayawga lahashadaydi wali luunki kama bin naftii ku lurtoote lulmana iisayawga jacaylkuba markay laydhuuqa aadee
milihito nacasiyo milihito jacayl kuba markay laydhun qahatee ukuba huleemaan malalabta aadu gaadhayn nacasiyo milihito nacasiyo milihito rabin libta aadabaha ha ulyari kuloolaan oo rabin libta aadabaha ha ulyari kuloolaan cadda loholka sheekadaaga oo rabin libta aadabaha ha ulyari kuloolaan oo rabin libta aadabaha ha ulyari kuloolaan cadda loholka sheekadaaga anna la hashadaydi wali luunka kama bin naftii ku lurtootehe lulmana iisay ugaaga markii laba is eegtaba waxay laabto moodaa hee inay hee igu lamaayeen waa sidaasay nasteexi indho aad bay u mahadsantaha waxaynu ku aadineed fanaanada caasha kin cilmi xaashi weliba waxay nasteexa gabagabo u ahayd barnaamijka garsoorka ee toddobaadkan tan iyo intaynu toddobaadka dambe sharmaarko dib hawada xilligan oo kale intaan ugu kulminba aan isku aadka u sheegno oo dayaxdal nurshiyan ku aadinay dayax waxaynu ku aadinay qadarkeyo caasha kin ayaan ku aadinay shakina nasteexa indho waa rajeynaya in tartamayaasha toddobaadkan ay iska soo adkeyn doona wareeg labaada imaaday haddana waxa waaye haddana waa la baxaya 8 baa soo haraysa marka haddaba fanaanka taageerto jidka cad looga tagin barnaamijka garsoorka fanka oo aad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliya stuudiyiisa dalka Finland wanaga inta waxaynu sharmarko si gaar ah ugu mahadcelinaynaa saaxiibada shaqada ee garabkeena taagan mar waliba waa MJ Taajir Yaaska Cabuudi iyo waliba Xuriya Cabduqaadir Sheekh intan kulanti dambe toddobaadka dambe u kulmeyno waxaan leeyahay waxaan ka tagnay Zakariye oo inaga saaciday habka aad u codeynaysan barnaamijka tan iyo kulanti dambe nabadgelyo